السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أصحابتي ذا جنال كيغ نسرع عرفاي كوكين جنال فضلا هدية اتاي مركوغو هوريسي آد نسوى بوقتي سبسكرايب سارة جنباليلك فورسي آد أولو سعتيد عشر والبا أنسو جلينو ونسي شارقري أصحاب هذا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواad asxaabteeda kusoo dhawaada muuqaalka loo cusub. asxaabteeda maanta waxaa sameysan doonaa bariis iyo muxuu ahaay wixii lagu cuni lahaa insha Allah. hadirtaan waxaan sameysaneynaa hilib yar oo iska fudud dheecaan leh oo ku cuni doona bariiska. hadirtaan waa bilaabaneynaa insha Allah. hadda way noo soo kululaatay saliid. waxaa ku darsan doonaa xabad basal ah oo aan soo jarjaray. waxaan sugeynaa inta basasha wax yar nooga soo shiilmayso. hadirtan xoogaa basasheena way noo soo shiilmatay. haddan waxaa ku darsan doonaa hilibkii. hilib geel caadi ah. hadirtan waxaa sugeynaa intii hilibka biyo ka dhalaay kadibna biyihiisa uu ka dhameysan doona. ha ku darin wax biyo ah. waatay asxaabteeda hadirtaan waxaa kusoo laabanay hilibkii. waa ujeedaa waa noo soo qaleysnay. ilaa hadda wax biyo ma ku darin. isaga biyihii oo dhalay wuu soo dhameystay. haddan waxaa ku darsan doonaa waxyaabihii kale aan ugu talagalnay. meeshaan waxaa ku haystaa filfil soo tumay. sidoo kale meeshaan waxaa ku haystaa xawaajiyaal isku dardaray. sidoo kale meeshaan waxaa ku haystaa toon iyo kabsar soo tumay. sidoo kale meeshaan waxaa ku haystaa maraq digaaga qudaarta ka sameysan. maraq digaaga haddii aad neceb tahay cusbo ku bedelo iyo 2 xabo oo basbaas ah. sidoo kale waxaa kaloo ku darsan doonaa hal qaando oo apple cider ama qalka tufaaxa. sida hor kuugu soo sheegay qalka tufaaxa cuntada wuxuu siiyaa dhadhan gooni ah. sidoo kale waxaa ku darsan doonaa nus qaado oo soy sauce ah. nus qaando oo soy sauce. haddana waa isdhexgelineynaa. haddana waxaa kusoo darsan doonaa karooto aan soo hoolay. maanta hilibkeena ma u isticmaali doono wax baradho ah. intaan waa nagu filan. sheekada intaan markay mareyso hadirtaan waxaa ku darsan doonaa hal galaas oo biyo ah si hilibka uu noogu soo bislaado. intoo diyaar noogu soo noqonayo hilibkeena waxaa sii karsan doonaa bariiskeena. waata asxaabteeda hadirtaan waxaa bilaabaneynaa bariiskeena inaan karsano. meeshaan waxaa kusoo shubtay wax yar oo olive oil oo saliid ah. waxaa sugeynaa wax yar intay kululaaneyso. bariiskeena ma u isticmaali doona maanta wax xawaaji ah wax maraq digaag ah sababtoo ah hilibkeena ayaa ku dhan waxyaabaha isbeesiska oo dhan. bariiskaana waxaa ka dhigan doonaa bariis cad ah. hadirtaan waxaa ku darsanaa biyihii. waxaa sugeynaa inta bariis biyaha oo nooga soo kari doono. meeshaan waxaa ku haystaa waa bariiskeeni waa qasay ilaa iyo 30 daqiiqo camal oo qasan yahay. waa dhaqay waa nadiifiyay kadib biyo caadi leh ku qasay oo qaboob ah. waakina bariiskan hadda bariiska isticmaalayo waxaa waaye alfanaar bakistani. bariis alla bariiska haysato ka sameyso.
muxuu ahaa ii sheeg sidaana samee qas bariiska hadda bariiskeyga isagoo basmati uu dheeraanayo haddana markaa sidaan bariiska u qastid saa-id uu isoo sii dheeraana bariis qurux badan oo furfurna uu kuu noqonaa hadeertaan waxaa sugeynaa inta biyaha oo nooga soo karkarayaan hadeertaan bariiskana biyaha kasoo miiran doonaa insha allah waa isku soo laabanayna waata asxaabteeda hadeertaan waxaa kusoo laabanay biyaha way noo soo karkareen hadeertaan waxaa ku darsanaa waxyaar oo cusbo ah kadib waxaa kusoo shuban doonaa bariiskeena biyaha waa kasoo bixiye halkaasa sidaas quruxda badan nooga soo baxay saa hor kuugu soo sheegay bariiska ma lagu daraayo wax xawaajiyaal ah maraq digaag saliid xitaa waxaa loogu daraa bis in muxuu ahaa ii sheeg oo hadhow isku dhegdhegin bariiska bariis cadaan ee qurux badan furfur ah sidaasaa rabnaa inuu noogu soo baxo insha allah hadeertaan waxaa sugeynaa inta biyaha oo noogu soo gursan doono bariiska insha allah hadeertaan waxaa kusoo laabanay hilibkii wili biyaa ku jiro qaleel ma noqonin waxaa sugeynaa inta qaleel oo nooga noqonayo insha allah waataa asxaabteyda hadeertaan waxaa kusoo laabanay hilibkii waa ujeedaa sidaan quruxda badan ayaa nooga soo baxay intaas dheecaan waa ku reebaneynaa waa ujeedaa sidoo u qurux badan yahay hadeertaan waxaan kusoo darsan doonaa basal iyo barbarooni aa soo jarjaray haddii hilibkeena sidaan oo diyaar noogu yahay waxaa ka daminaynaa dabka waxaa ku laabaneynaa bariiska waataa asxaabteeda hadeertaan waxaa kusoo laabanay bariiskeena maasha allah sidaan quruxda badanoo nooga soo baxay biyaha wuu dhameystay hadeertaana waa huurineynaa ilaa iyo 5 daqiiqo camal dabka u gaabinaa 5 daqiiqo kadib waa kusoo laabaneynaa insha allah waata asxaabteeda 5 daqiiqo kadib waxaa kusoo laabanay bariiskeena sidaas quruxda badan oo noogu soo baxay hadeertaana waa soo diyaarsanaynaa qadadeena quruxda badan waa isku soo laabaneynaa insha allah waata asxaabteeda qadadeena quruxda badan markaa soo diyaarsanay sidaan ayay noogu soo baxday maasha allah tabaarakallah meeshaan waxaa ka heystaa jibsi xir jibsi aan soo shiilay igaraal naqda ma idiin duubin xoogaa kaamirada iga dantay jibsi sidoo kale meeshaan waxaa ku haysanaa hilibkeeni intana waa bariiskii waa ujeedaa siduu u cad yahay u qurux badan yahay intana mooskii intana ansalaatadii lagu cuni lahaa intaa haysanin allah siiyo anagana allah inoo barakeeyo asxaabteeda wixii dhadhamis ee aniga idiin qaabilsan bismillaah maasha allah tabaarakallah ma laga sheekeyn karo macaantiisa waata asxaabteeda intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waa walaashiina sar carfaayo oo idiin dheheyso bashbash iyo barwaaqo insha allah